Dhakhtarka Adnaa Adan ayaa tababar u socday qaar ka mid ah howlwadeenadeeda iyo qaar ka mid ah umulisooyinka iyo kalkaalisooyinka oo ku saabsanaa sidii looga badbaadin lahaa qalliinka lagu sameeyo hooyooyinka waqtiga umusha u soo xidhay. Tababarkan ayaa waxaa bixinayay macallimiin ka yimid dalalka Kanada iyo Australia. Madashan ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay maamulka jaamacadda Adnaa Adan oo ugu horreyso Dictoraysa Adnaa Adan Ismaaciil iyo sidoo kale ardaydii uu tababarkan u socday. Dictoraysa Adnaa Adan Ismaaciil ayaa sheegtay in muhiimadda tababarka loo bixinayo uu yahay sidii loo yareyn lahaa qalliinka hooyada ee waqtiga umusha ay la kulanto, isla markaasina waqti badan loo gelin lahaa inay hooyadu caadi u umusho. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: ilaahay ha inoogu wada xafladaha sidan oo kale ah inaad saa u faraxdaan baanu anaguna ku farxaynaa. Adnaa Adanna farxad bay runtii u tahay inay dadkeygii maanta wada farxeen, inaad tababar wanaagsan hesheen, laakiin hal farxad baa noo harsan. markaad dad kale sii tababartaan ay kuwaasina sidan oo kale u farxaan ayaanu haddana sii farxaynaa. waxaan kaloo aanu sii farxaynaa dumarkii sii sectionka mari lahaa markaad ka badbaadisaan ee talooyinka u bilowdaan bilowgaba ee qofkii sii ogaada xaaladaha ee qalliinkii lagaga maarmo acupressureka lagaga maarmo ee dad badan aad badbaadisaan eed maalin kale ku faantaan gabadh la qali lahaa ayuu tababarkii aan qaatay badbaadiyey. sharaf bay idiin noqonaysaa, farxad bay idiin noqonaysaa. horta macallin baan ahaan jirayo inan baa beri macallimiintoo dhan midhaan waxba ninkani garan maayo, wallahi waan xasuustaa. ninkaa waa laga gacan taagtay, deetna waxaa ninka dhigaa ayaanu abaal u haynaa. iyadoo ardayda la yidhaha 100 kalmadood soo xiftiya ayaan maalin waxaan ku dhaha hadaad 3 adigu soo xifto haddaba 3 ka 100 soo xiftiya baad la darajo noqonaysaa. ardaygii 3 soo xiftiye haddana waxaan ku dhaha hadaad 5 soo xiftido ka 100 soo xiftiya baad la darajo noqonaysaa. 5 soo xiftoy isagoo 20 maraya ayaan berigii hay'adaha u gudboon ka tagay. marka qof kasta waa lagu guuleysan karaa. Adnaa Adan ba waxay tiraahdaa waxaan jecelahay oo sharafii ah ardayda dhexe inay 2 kor uga baxaan ay kuwa sare ku biiraan, 2 kuwa liita ana inay kuwa dhexe ku soo biiraan. marka qof sii ciirayay in la soo toosiyaa sharafa fariinta ba wada qaadnaa. marka leadershipka iyo kartidaas ay isku ognahay. adnana waynu u duceynaynaa, macallimiintana waynu u duceynaynaa, inana waan isku wada hambalyeelaynaa. guul hambaliyo. horta waxaa noo farxada inaan baranay cilmi aan horumarka hore aqoonin oo aan waxyaabo badan oo hooyada aan ku caawin karayn. taas noo farxada siyaabo badan oo laga hortagi karo hooyadu inay halis ku gashana inaan kaga hortagi karno ayaan baranay. maalin dhaweed horta waxay farxad ah markaan maalinkii labaad waxaan loo dhigay massage hooyada haddii uu ilmuhu ka sareeyo qalliin ku noqon karto haddii waqti badan ay qaato. marka macluumaaddu waxay nagu tiri massage ka hadda sameysaan ilmuhu soo degayaa, hooyadan bush wanaagsan bay helaysaa. marka waxaan ku jiray nayska ayaan ku jiray dhakhtarka weyn ka bacdi waxaan sir massage-kii lagu soo baray. marka waxaa noo timi gabadh garaafida tuuya noo timi. markii aan BV gu sameynay waxaa lagu yiri ilmaha gu sareeya 2 saacadood ka bacdi haddii ilmuhu soo deg waayo qalliin baad noqonaysaa. kabacdi markaa ardayd kale tradingkii qaadan baan ku yiri trading baa la soo baray, bal tradingkii inuu shaqeynayo in kale bal aan sameeyo. markaa tradingkii baan markaa bar u sameeyay. marka waxa weyn hooyada intaad u jiifisa dhinac inaad gacantaadana ku cuskato dhabarkana aad saa ugu massage garayso. hooyada markaa kolba badh markay tiraado nabar bay hayaan ka deynayay. markaa massage waxa weyn markuu nabarku hooyada qabto waad ka deynaysaa, markuu nabarku ka joogsamana waad u sameynaysaa. markuu massage-ku qabto nabarku qabto waxaad ku qabanaysaa halkaas iyo waxaad ku qabanaysaa lugtaada dhinacaas aad adeegsanaysaa. ka bacdi massage-kii baan u adeegsaday. waxa farxad ah hooyadii markaan badh u adeegsaday mar labaad aan u adeegsaday inuu muhiim markiiba soo degay. It's the progress of the baby and the progress of the labor and the condition of the mother and the baby that will make the final decision whether we do a trial, the vaginal delivery, or we decide to do a cesarean section. That's, but we will try to do our best to minimize cesarean section if this patient can have a normal vaginal delivery. Okay? So the patient and the baby, that's where we make our final decision. But what is important is that we give this mother a chance. We try what we know, we try what we can, we try to help this mother and the baby the best way we can. So keep trying, keep helping our women. And let me just tell our friends here who see a room full of midwives, who think that
It rains midwives in Somaliland. In 1991, in fact, in 2000, when we started the first training of midwives in this hall, all of Somaliland had 18 qualified midwives.